بسم الله الرحمن الرحيم كل توع أنا ونحسن مركز توجهتان صومالية يكون سو دواء ضد أكل فقرينه سيدي ورقتها بنا بحيدا لقى قابن يدلك بلتم كبروكسل عاصمة ديسة يو إهلو ضد كود ولا محمد عبد الله فرماج الله يرحى الجديد دوني محكمة ديال أما الوجود ويران متقنا سفر كيس بروكسل سي متقنا محكمة الله قبل شرعيا الله يرضى يا هوش أكون مشغول سن من وجاكره متقنا إنه شرعي وسامح حي إنه كبحه ذلك بروتشم كهدي متقنا كريمينال كورت لوغيره لكن أنت لوجاي وسيدك هو ورفافنتا عبد الرحمن عمر يوسف عبد الرحمن يوسف متقنا هذا ضغط مجال المقشة أي هالك سفر وسوء هذه أو هالك سفر وطيب جلاي هولن مركا حيل جالس أيام محكمة الله يخيله الله يوشيعي إنتشر الجسم بي ولا جوجي سفر كيسي كلام كان بيحكي تالي إلى ما محكمة أكيد ما نست إلا محكمة دو كتجانا كمو بحين مركا شرعيا هالك عيروب كمشي عندي تنجيدي أمي صمتة أو غفقة حروية رئيس وزراء متقنا على عمبارين يا محكمة لوجيريا مدحوينها لوجيريا يوروب إتكستوا حر مركا فرماجو وحوي مقطع إن سفر كي وقت كا وهذا صباح أيوه ودتكو وسديارنا وحود ديار جروبيان إن متقنا نكا إلى حساب طبعا قبيلكو هويها أيا بنبح أنتو بدل متقنا صدح موضوع قبيلك صلّى بيه وحوي وقاعدينك قبيلك متقنا كلي هذا كوسو بيري متقنا وقبيلك راشع إسحاق اللي هذا يسمى لنا ماجورتي جوده وإذا قلنا مثلا إن دجالك تقرر وقبل كده استيل ليه هاي هاك لفت يدنا المكي هرتي دارود متقنا البهانتي وسنجلي أي عبانة يعني اللي يهين دي كنا نقول عيا وكأمسينها أورالي وجران أيوه هاي وأما إن إيه مجارتين كأيوصوه بينيا أما ونقول إيه جنيا إن كلام تراشع إسحاق أو ظلم يعني كتسنيني marka waxa muuqatay barnaamijku uu aad u balaaranayo runtii oo mutaqana xilli adag inuu yahay mutaqana marka loo fiiriyo dadkuna boorar ay qof kastaba si madax banaan boorar ay sameeysanayaan waxa laga yaabaa in meeshu rabshado ka dhacaan muddada uu joogo inkastoo leeyahay hotel qaas ayaa lagu qalin doonaa haddana dadka waxay u arkaan inay meesha kaliya farmaajo ku ceebayn karaan ama iyagu cad goosan karaan ay tahay Yurub oo qofku xur yahay inuu walba sameeyo hadda booliisku soo marto warqada soo qaato ogolaashiyaha banaanbaxyada waxaan mataqaanaa gudoomiye xogeenka jaariyadda mataqaanaa qaaradda Yurub Somaliland ayaa qad ku jirto ayaa hormarnaya marka hore kadibna gudoomiyaha ugu doona hadda ay maqlaysaa haye sidoo u aragtaa arrinta safarka farmaajo iyo wadooyinka muqdisho u xirtay taadiyada uu ku kacay iyo sidoo u aragtaa السلام عليكم أبو الداهر على الصورة وانكم سلام سلام الله والله كل ومضوا وحى عد صعب لو ما قارن كرو وايه Soomaalidu waxay ku maamaadaan cadceed soo baxday shacab lagu ma qarin karo وايه dhibaatada inta soo jeesanaysid inta soo dhan soo socotay maanta ayay ugu dhowdahay hadii hawiye haduu indhaha kala qaadaan uu hurdada ka tooso وايه maanta waxa la wada og yahay shanta Soomaaliyeed baa la yiraahdaa ayaynu nahay وايه laakiin nin walba wuxuu haystaa gurigiisa furaha gurigiisa wuu haystaa وايه maanta waxa afarta Soomaaliyeed kale waxay diyaariyeen hawiye furaha gurigiina idinku ma haysataan وايه dhibaatada ugu badan ee idinku dhacdaana waxa idinku wacan idinkiba maamulkii idinka naqayahay وايه aqoonyahankii maalintu soo kaco uu soo caqliyaysto waa idinka dilaya وايه waxa kaloo idin soo haray waxa meesha ku dhimanaya maalin walba waa naatidiina وايه idima xaqiri karno been idinkuma sheekayn karno maanta daaroodna ma dhimanayo isaaqna ma dhimanayo idinku weeyaan kuwa dhimanaya وايه Jabuuti maanta gurigeeda way haysataa وايه waqooyi gurigiisa wuu haystaa وايه ogaadeen iyo way haysataa gurigooda وايه idinka hadaba gurigiinii soo hela وايه ducana waan idinku daranay inuu ilaahay guriga ina waxa leedahay dadka la gumeysanayo oo cashuurtoodii la cunayo oo xoolahoodii la cunayo oo lagu dilayo oo qofkii soo kululaada ama soo weeraraba halku imaanayo waa idinkii waxa la doonayaa in magaalada dhistaan dadkaas dulka isaan waa ka majarteen maamulkooda way dhisteen isaaq uu dhistay baraadar waa leedii soo shaqo tagay وايه haddii leedii soo shaqo tagayna waxay ahayd in maati iyo maal leedii kala reebay ahayd وايه maanta maati iyo maal leedii ma kala reebin وايه
mana laydi kala reebi doono waayahay haddii idinku maatidiina aad badbaadsanaysaan meesha dawlad wax la yidhaha ma yaallo waayahay maanta waa inaad maatidiina badbaadisaan waayahay maatidiinana waddo kale isku badbaadin kartaan meesha ma taalo waxaa leeyahay caasimadii dalka weeye halkaan muqdisho weeye saasay leeyihiin dadku oo qabyaalad baad bilaabaysaan oo cunsuriyiinta dadka naga bax dhahdaan waxaasi waa marka la doonayo in laysii daldasho maatiduna dhammaato maalkuna meesha wax yaalla male ma fahantay waayahay naf nool baa boqol iyo konton u go-aysa waayahay waxa sidaa laydii odhanaya waa cimri dherer shanta soomaaliyeed markii caasimada waagi caasimad baa laga sheekeynaya hadda caasimad waxa la yidhaha meesha ma taalo waayahay taladu caasimad ma taagna arrintu haye arrintu waxay taagan tahay shacabka iyo maatida muqdisho sidee loo badbaadiyaa hawiye indhaha kala qaad waxa meesha ku dhimanaya waxa ku cadibanaya waa dadkaaga ma dad kalaa maalin walba dhimanaya waayahay qadka iigu jir gudoomiyaha jaariyadda somalilan ee qaaradda yurub ayaa asna qadka iigu jiro bal fikirkiisa wuxuu ku darsanaya safarka farmaajo seed u aragtaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat waayahay waayahay kusoo dhow telefoonka waxaana fiican in la fahmo farmaajo horta wuxuu yahay waayahay farmaajo waa nin mareexaan ah soomaaliya wixii ka dhacayna waa la garanayaa waayahay qarsoon maaha waayahay isaaq wixii lagu sameeyey waa la garanayaa waayahay halkan isaaq waa dad hore loo soo laayay waayahay waa dad caruurahoodii iyo dumarkoodii xabaalo lagu guray waayahay ninka la kursaday inantiisii iyo xaaskiisii lagu kursaday maanta ku nool isaaq waayahay waxaa ku nool waayahay hawiye iyo dadkan hawiyena mid baan u sheegayaa maanta waayahay dagaalka maanta lagu soo qaaday somaliland iyo isaaq lagu soo qaaday ha hawiye ku socda caalamad buu yahay hawiye waayahay ninka farmaajo leeda wuxuu wadaa waxa la yidhaha daaroodiya waayahay wuxuu soo celinayaa awooddii daaroodiyuu soo celinaya waayahay maanta dagaalka ka socda tukarag farmaajo isagaa ka mas-uula waayahay puntland iyo cabdiweligaas waxba kama aha waayahay waxaanu haynaa caddaynaynaa reexaan ku jira oo laga soo qaaday galgaduud waaya cabud waa aqlaa keena walaalkayo markaa maanta marka uu dagaalkaasi lagu soo qaado somaliland waxaa la doonayaa in dib loo soo celiyo somaliland oo laga soo saaro meesha lagu yidhahdo sool aan ka dego waayahay ka war hadda safarkiisa maxaa u diyaariyay gudoomiye jaarida tahay banaanbaxyada safarkiisa waxaan u diyaarinay banaanbaxii ugu weynaa waxaa nala socda hawiye ha ogaado maanta dagaalkaas farmaajo haddii ku guulaysto oo isaaq dib u riixo laascaanood iyo ku celiyo isaaq ha ku celiyo ha birito wuxuu ka bilaabayaa galmudug mareexaan galmudug joogaa birito waxay qabsanayaan galmudug bay qabsanayaan waayahay farmaajo isballaarin buu wadaa daaroodiyuu wadaa waayahay marka amoodina u kaleeyin isaaq lagu socday idinkana waa ladiin iman doonaa oy marka anagu waan diyaarsanay banaanbaxyadii waa diyaar dad badanoo hawiyaa baa nala socda ogaadeenka qaar kamid a xitaa nala socda dee meeshana waa meel sharcila waa adduun waayahay gudoomiye waa mahadsan tahay haye warkaas sow ku galay sabax walaal warkaasi waa war jira hiilyahooba caalamka beesha caalamkaa loo cadaynaya in dadka lagu cunayo xoolaha ee loo soo shaqo tegay inay yahay dad meesha lagu abiyuusay meesha abiyuus dawlad ma taalo abiyuus baa jira waayahay abiyuuska waa in mudaxaraadka abiyuuska la helo waayahay dibanayaasha waa in la helo in dadkii dagaal oogayaasha ahaa ee dadkooda laayay ee mataqaanaa beri xasuuqa ka geysta farmaajo wuxuu xasuuq ka geysta jilib wuxuu ka geystay tuulada macalinka haanta dheer ka geystay guriga cabdiraxmaan ashkuuro weeraro oo xasuuqay oo weliba nin yurubiyaana ahaa ee guriga cabdiqaydiid oo xasuuqay in dagaal oogayaasha yurub ay fiisaha siisay oo aragtaa in nin dagaal oogaa yurub ay fiisiiso tirakaalay burjumka lagu casuumo ma dhici karto ma suurtagelayso taasi laakiin haddii la aamuso way suurtageli kartaa haddii la aamusi waayo oo la caddayn waayo kacdoonkeeda xanuunka badan beesha caalamka la tusi waayo waxba lama ogaanayo still god baad kusii jiraysaan waayahay ma qaban karno waa maasantahay dad shacabka inay ku dhegeysanaya umalaynaya oo ku rajinaya ay guul hallow ha waa ku salaamay waa ka qaada walaal haye horogal dooda dala socoto daarmiya
ها وداهر هضاد هلوقل والله يعني ويريد عن أحمد عبد الله هاي صعب لي سويدن وايه ورنيه داهر مركز رنت الله شيء وبحشان هذيك أنا يكون أفتح ملها وايه وحاوي فرماجو waxa uu meesha ka wado uu ku soo tala galay inuu ku dhinto ma ahan si kale ooga baxay wadankan male waayahay dagaal buu diyaar u yahay ninkan qorshahan qorsho uu ilaa ra'iisul wasaaraha waagu waxa uu damacsanaa way xilliga loo qaaday waxyaabaha ka mid ah waayahay marka ninkan qorshihiisa waxa waa daaroodisin oo had qaasatan targetkiisa koowaadna waa habargidir waayahay habargidir maalinku ka taqalusana hubiye madaxay raaracinaan inta kale waayahay sheekada hadda markuu Puntland tagayna qorshaha wuxuu ahaa in uu dhulbaahanta iyo isaaq iyo isku diro madaxa isku geliyo shaqada asaga isaaq iyo hadda isku dhacaan majaarteena waa faa'iido u tahay asaga waayahay marka ninkan waxa kaliya uu ku guuxayo oo hawsha uu wata waxay tahay wadankan qaabkii adeerkiis riwaayada kaartada adeerkiisa meeshan taagan uu wata wax kale ma wato marka waxa leedahay ka waran marka Yurub waxa soo socdaa maxaa la qaban karaa wallahi hadda hadaan fadhiga laga kicin oo ninkan si sax ah barka dadka sidii loo maleynaya ma aha ninkan dadka moogay dhacan mooga ma aha ninkan waayahay ninkan waa nin yacni waayahay Sweden joogtaa banaanbax ma ka soo qayb galaysaa maskiiniyo marka banaanbax ma ahan waa waliba ninkan in oo wax alla wixii lagu sameyn karo lagu sameeyo ma aha adduunka runta loo sheego banaanbax ka yaan lagu simna leedahay bashar al-asad oo kale oo Syria oo kale ka dhigaya ninkan Soomaaliya hadda laga hortagay waayo waa maasada qofka soo gelinaya qadka hello Norway waa maqlashaan shacabku say u kacsan yihiin hello waa ka qaaday horogal dooda inaad raaliga nabadii nolol baahay farmaajo dagaal kulma jiro Somaliland qadiyada Soomaaliya ka soo jeeda dhulkana hartiba iska leh taas nin walba Soomaalnimada aaminsan calanka buluuga aaminsan uu taageersan yahay waayahay adiga laftiga daar calaso waliga Puntland ma taageer horta anigu deeqiisad baan ilaaha waa fahmay codkaaga waa fahmay deeqiisad ninka halka ka daaroosinka difaaca tahay ee sharax ugu dambeysay ka hadlaya hawiye hadday saa joojin hawiye saas yeelin hawiye waa loo talinayaa daarood baa xog ka sii haysan ninka shal dhahayata ani horta wixii wadanimada hawiye kuma haysto laakiin wixii talo leel ka saatahay waliba saan ku naqaano in loo taliyo oo madax loo noqdo hawiye taas waa sharciyan waa xadiis eriga ku hadlaayo hawiye 8 sano soo haystay al-shabaabna waxa ka qaban waayay hawiyena maamul waa u dhis waayay hawiye waa xoreyn waayay hawiye waxa xoreeyay maamul u sameyn waayay oo maamul u dhisan waayay waa hawiye dhexdiisa waxa maamul u sameeyo maanta fil Soomaaliya u dhisatay waa Cabdullaahi Yusuf iyo Puntland iyo Daaro taas idna ma diidana adiguna ma diidani anna ma diidana tan marka hadda leeyahay hawiye u soo helinaya isaaq waxa uu arkaa Soomaaliya dhulkeedii Soomaaliya dhulka tagay waxa burburaya waa hawiye isaaqna dhul waa dhisan karaa daaroodna dhulkiisa waa dhisan karaa marka maanta waxa kula talinayaa dadka hawiye ee ka soo horjeedo oo mucaarad ku ah farmaajini ku dan yahay daarood dan uma hayo marka ma taqaanaa shalay waxa tiri hadalkaaga daan si raaco baraxley xitaa ma dhisan karaa hawiyuhu baraxley galmudug waxa bixiyay Puntland oo caalam madaxweyne ka dhigtay oo dhistay taas ma diidan tahay waayahay taariikhda dib ku xasuusiyo madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya ma taqaan ayuu ahaa deeqeysad nin maamulaha marjeetanku ah hawiye xitaa taariikhda kuma taran way qariyaan oo magaciisa xitaa ma qubulay maya adigu waxaan rabaa inaan ku weydiiyo magaciisa ma taqaan ayuu ahay aadan Cabdullaahi Ismaaciil yahay waa nin hawiye ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya ma taqaanaa waa nin dira ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Soomaaliya ma taqaanaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud ahay ma ogtahay mas'aada ku sheegaya inaad waaqaano hadda dhow dhintay laakiin maya waxbaan ku fahamsiinayaa ma ii sheegi kartaa aniga waxaan ku sheegayaa Cabdullaahi Ciise ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo xilka waa ka degay si nabada soo qof dilin aada cadda madaxweynihii ugu horeeyay hawiye u ahaa isna wuu ka degay Cabduqaadir Salaad Xasan wuu ka degay ilaahay kuma samadiida Xasan Maxamuud wuu ka degay Sheekh Shariif wuu ka degay Cabdirashiid Ali Sharmaarka ma jeerteen dhahaya hawiye ninka raacsan yahay yaa dilay ninka Maxamed Siyaad Barkowla soo dalka baabi'inayay ma taqaanaa Cabdullaahi Yusuf ogta markuu yimid intuu qalqalaayay kursiga xabada lagu dajiyay maxay tahay maadaama aad afayeenkii hadda loo tahay oo markaas hawiye ka hadasho sababta ninka daaroodka markuu kursiga ku fariisto oo dimuqraadiyad u dhinac maro oo ka deg u diido kursiga kan hawiyahan uga dego oo ku soo dhaweey dhulkiisa maxay sababtaas
dambeeya kursiga muxuu uga degi laayahay oo cabdirashiid loogu dilaayay oo siyaad barre u haystay cabdullaahi yuusuf dadku ugu laayay maxay sababtaa ifahamsii cabdullaahi yuusuf dadku laayay dad qabqabliyaal ahaayeen dad waxa ahaayeen al-shabaab bay ahaayeen dad waxa ahaayeen nabadda iyo ummadda Soomaaliya kasoo jeeda oo ku nool wax bilqayl yiraahdo dadka inay dhacaan bay ahaayeen waxay ahaayeen nimankii warlordka oo hawiyo ahaayeen oo waxna qabsan waayay maamulna dhisan waayay xaq buu u lahaa inuu qabto oo maanta Soomaaliya israacdo maanta madaxweyne la doorto sheekh shariif uu imaado xashq imaado farmaajo imaado cabdullaahi yuusuf wadada furay maanta Soomaaliya 1991 joogi lahayd cabdullaahi yuusuf intaas sameyn lahayn waaye maxamed siyaad barre koola san wuxuu ku leeyahay duufaanti waxa socotay la dhihi jiray dictator adduunka dhanbe ka jirtay oo meel walba adduunka ka jirtay meel ka jira adduunka ayaa tahay oo xiligaasi aala cabdul ismaan buu sheegaysaa cabdulshii cali sharmaarkan waad dishiin aala cabdulna wuu joogay cabdullaahi isna waa joogay rag ugu horreeyna wayna baneeyeen duufaanti dictatorkana waa jirtay muxuu koola tasan walaal dalkan ma taqaanaa dalka muxuu doorasho uga qaban waay oo ku soo u baneey waay wax horta waxa hayeen balwada nin oo sheegay ku horreeyay dadweynaasha transition Soomaaliya ku jirtay marka gumaysi ka soo baxday awood ma lahayn aqoon siyaasadeed maxamed siyaad barre nin military u ahaa oo ciidanka dhan xukumay oo darajadiisa og tahay waaye waxaan ku weydiinayaa waaye qabiilkaad sheegtay maxay u difaaci waayeen maxamed siyaad markii lala dagaalo qabiilkiisa la dagaalaya ogaadeen baa la dagaalayo qof la soo jeeday oo jamaacada ugu horreysay Soomaaliya ku kursay waxaad marjeedeen baa oo daarad weligiis barraacin oo kuma beeshin waayahay cabdullaahi yuusuf maxaa loo difaaci waayey oo ma taqaanaa ku qasbay inuu ku noqdo qaxooti Yaman cabdullaahi yuusuf waa la difaacay xilkiisa inuu ka digay si sharaf looga digay intuu rabay inuu gaarin madaxweyne oo dhaha kursiga mar ugu fursay uu ku fariistay hawiyana uu u taliyay maantana muqdisho waxay ku dhisantay waa magaciisi sheekh shariif markuu imaado wuxuu yiraahdaa waxaan ugu mahadcelinayaa cabdullaahi yuusuf meel madaxtinimo ka muuqato ka tagay afkiisa ka hayna waayahay haddaad soo maasan tahay halkii xiga halow haye alifsa dooda hore u gal iska dami maqalkayga iska dami dooda hore u gal okay salaamu calaykum horta marka hore وعليكم السلام ورحمة waxaa laga hadlaayo waa maqlaan kowde وهي horta meesha maxay ahayd haddaa idin fiiriy kulligiin qabiila ka wada hadlaysiin ma garata وهي ama waxa Soomaaliland kasoo hadlaaya haato ama adiga daayira haato ama wixii kaloo kun iyo samtiya meesha ku jirta qof hal dan oo Soomaali wadan idinkuma jirto ma garatay وهي kulligiin qabiila ka wada hadlaysiin qof ilaahay dartiis in qabri la geliyayo 2 mitir dhexdood oo malaa'ig su'aalaysa qof u hadlaysa meesha kuma jirto Soomaalida dhama qabiil ilaahay ee quraankiisa ku sheegay qabiilka inuu jiray waxaan ka rabaa farmaajo safarkiisa burjumka sidoo aragtaa qabiilka hajir daayir dhageyso aniga ku aqaana qabiilka hajiro qabiilka inuu jiro lama diidano qabiilka in ilaahay isku aqoonsado la tacaaruf la taqaafal mu dhahay isku laaymo qabiilka ma in la isku laayo qabiilku waa qalade waxaan ka hadlaynaa kuwa qabiilka aaminsan markay yimaadaan xukunka in dadku laayaan ayaa laga hadlayaa safarka farmaajo ee burjumka ma la soo dhaweynaa mise waa lagu banaan baxa ma ka soo qayb gali adigu aniga fiiri aniga horta dawlad Soomaaliya oo fiican oo nadiif ah waan rabaa ma garatay laakiin qabiil inta siyaad barra dadlay kana dadlay Soomaali meeqa iska dishay siyaad barra ka bacdi meeqa milyan ee iska dilay habar gidiriyaadka annaad gaala ma garatay haye dooda aan ku soo laabanay inta habar gidir iyo adgaal ee iska dishay siyaad barre boqol wadka haye dooda aan ku soo laabanay banaanbaxa farmaajo lagu soo horjeedo ma ka soo qayb gali sheeso aragtaa fiiri maxamed siyaad barre kadib calimaadiya soo maray haye dooda ha ka bixin mawduuca ku soo laabay ma ka soo qayb galaysaa banaanbaxa halo dadka xiga السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. برنامج كيف بعمل صوانتان. هيا هروقل. ليه برنامج كوريا ده ممكن فرمارته محلنا هذا يعني بتكلم أي حاجة نقولي شو وياي بنامبها فرماجة ما كسو قيب جلي سياسة وعرفة كسو قيب جلي. وريه برنامبها بهرته وحوه شو برنامبها مع قانون ثاني. ويا هو ما سنتاي. هلو قدك حاجة. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. برنامج كيف واكو حلنتاي. هلو صار. واكو السلام بقولك بقول مقعيق وعبد العزيز خليل وكنا هذا الدنمارك
وايا ناكت مرصد هاي هبر عيني هذا اللي قلنا هاي niyo waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka ku jirtid waxaan rabaa niyo inaan yar taabto waxaa laga hadlayaa Soomaaliya arrintan federaalka iyo Muqdisho wax ka socda ما يفرماجة كل ما أنا يسافر بلجيمك بنام بحياة قابلنا يا لوينها لو قابلنا يا سلو دعوتكم دلي سيدو أركتاوي سواش niyo haween Soomaaliya oo dhan baa isleysay ma garad عدك كرقان waxaan ku yiri Soomaaliya oo dhan baa isleysay ma garad وايا سيدو أركتا سوماليز ليس تان سيدو أركتا Soomaaliya isleysay waa ka xumahay laakiin deeni waxa farmaajo may waa ray oo yiri hal Allah aan u garan meeno ma garad وايا وما سنتها هلو قد حاجة هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة إذا وارد دار وقت سلامي إذا عافية هروق البرنامج كا أنا عبيرو أبان كهر الإيمانشين فرماتشو I wish إنه أنا مجالة الإيمان لها صار أنا جاء سنة هاي ومريشن من صوتي إنه إيمان لها وايا waxaan rabaa shacabka meel kasta joogaan reer Yurub waa inay eraya dhulba kaga banaan baxaan وايا farmaajo waa qabiilayste waa nin u soo jeestay sheekada adeerkiisa bahe وايا laba nin oo la yiraahdo saddex nin oo la yiraahdo actually duqbilow ها iyo nin la yiraahdo hadda la hadlaysay deeq jeeso ها iyo nin la yiraahdo dab casar ها haddaysan miidiyaha ka fariisanin ها sheekada 1991 dib ugu noqonaysaa وايا akhlaaq xumo ay kula jiraan ma garatay وايا Somaliland waxa loo weeraray waa daaroodiisri sanadii aaminsanahay وايا laakiin cid oga liidato ma jirto hadday keenaan ayaga kala googo'an oo dadka calooshooda dhex degan وايا marka aniga waxaan idinku soo kordhin lahaa dadka degan Yurub reer Yurub degan freedom of speech haystaan maalin walba dalaa la laayaa maalin walba waa la suuqyada meel la mara ma laha meel walba dhagaxaanta ku gooyeen say u cunaan canshuurta magaalada Muqdisho وايا inuu dad leeyahay magaalada Muqdisho inuu dad marka qadka igu jirto dad soo gilaya dad farmaajo difaac soo gilaya halo 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 haro ugal halo waa kaa qaaday saddex qodob baan rabaa inaan ka hadlo وايا adigoo raallaya وايا mid waa farmaajo هيا هaro ugal hada waqti ma jire mid waa farmaajo ku saabsan yahay midna waa wiil yar ee kolley dadkii burburkii dhashay ee adeeta u dhahayay hawiye ma tashan karo هيا هaro ugal codkaaga kor u qaad haro ugal hore isugu tuur midna waa Soomaalinimada horta midda koobaad waxaan ka bilaabayaa midda Soomaalinimada dhammaan guud ahaan dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa horta inay dad walaalo ay yihiin wax u dhaama iyo wax u dhaxeeyana aysan jirin qof kasta qof Soomaaliya وايا midda labaadna waxaan leeyahay wiilkii yaraa ee dadku ka hadlay mesela hawiye ma tashan karo horta daarood intuu degan waa la yaqaan hawiye intuu degan waa Soomaaliya kale inta degtana waa la yaqaanaa وايا dal gabar Soomaaliyeed qabiil gabar Soomaaliyeed Ethiopian ku hor kufsado ama gumayso ku hor kufsado hawiyahina ma jirto maanta oo meel degani inta dad la gumaysto inta dad la dilay inta dad la ficiyay ama waa daarood ama waa isaaq ama waa dir ama waa sidiyo waa kala tii gabar hawiyaha maanta cid gumaysta horta ma jirto taariikhda hore ma soo dhicin وايا wiilka taaba u sheegay dabcan kalkacaynu ka hadlay nin reer Majeerteen oo ahaan kalkacayna nimanka diga waa leeqana saacada Majeerteen baa diga وايا leelka soo waayay leelka soo waayay leelka saado aan garanaya oo nimanka darbi daarood ma hadaa darbi daarood ku sheegay inuu darbi hawiyaan hayn habar gibir saacad baana ay adeer macaan taasan u sheegaya وايا marka waxaan leeyahay horta dalkana baro dadkana baro anoo ku jecel oo walaalkay aad tahay in taariikhda laga dhaadhiciyay wiilasha Hargeysa jooga yararka ah ee lagu yiri de Soomaali ma ahidin mid la mid adigana laga dhaadhiciyo aad horta social media la timaado waan ka xumahay وايا waxa ii soo haray farmaajo waxa la yiri lamood noqosta weys وايا farmaajo waa la mooday waa soo noqon waayo laakiin Soomaalida waxa ku maamulaa mari dagay Allah hadda وايا mar labaad degan asdagay mar labaad hadduu idago ana asdagay وايا farmaajo waa noo digriyay waa noo xasreeyay
annagana reer suufi baan u badannahay haddaynu nahay dadka koonfurta soomaaliya dega cadaalad iyo macnaha isnaanta walaaltinimada Soomaali jacaylkuna aad buu noogu dheer yahay sidii waan ku qaadanay farmaajo waxaan leenahay maanta meel xun bay naga maraysaa shalay sidaan kugu soo dhaweynay kugu adeecnay kugu taageernay weli chance buu haystaa farmaajo weli kama naquusan ilaahay xaqiisna kama quusan midnimada kama quusanayno ciidana maanta cugdad hawiye cugdad ma qabo qabiil cugdad u qaba hawiye ma jirto maanta hawiye maanta wuxuu u baahan yahay midnimo wuxuu u baahan yahay walaaltinimo wuxuu u baahan yahay Soomaalinimo anaga inta baan nadeeqda hayo hore u soo marka halkaaga muxuu fariinta gudbinaysaa muhiimada guud marka waxaan leeyahay banaanbaxa iyo waxaan iyo barabaleemkan jiro dhan waxaan leeyahay waa wax waajiba maanta ay ummadda Soomaaliyeed inay ku dhaqaaqaan ay xaq u leeyihiin hadii uusan wixii uu ballan qaaday iyo wixii sharci ku dooran aanu ka weyno inaynu maanta ka soo horjeedno xaq baan u leenahay waa maasanta qadkii ugu jir halow qof ka soo hadlaya Puntland halow Puntland haye hore u gal dooda dala socoto waqtigan ugu yar wardaahiro marka hore aad baan ku salaamaya salaamullah ku soo dhawo telefoonka waa ku dhowahay dooda hadii aan hore u galo muqdisho baan ka hadlayaa anigu iyo dadka maxay tahay qaylinaya marka reer muqdisho waxaan leeyahay marka amnigiina la sugayana maxay tahay waxa tiraadaan wadooyin baan nala ka xirayo baroorta qarax dhacana waxa tiraadaan 20 baan naga dhintay 30 baan naga dhintay dawladda seexatay marka waxaan leeyahay awaanibada iska daaya adigana waxaan ku leeyahay Soomaali waa hal mid hawiye iyo daarad wax kala ma jiraan marka waxaan leeyahay dadka walaalaheena oo dhageysanaya meel walba ha joogeen gabar Soomaaliyeed baan ahay dadkaas waa dad isku mid ah Soomaali qolo ma ka taa u sheeg waqtigiisa halkaad joogtaa magaalada joogtaa ani waxaan joogaa Boosaaso reer Puntland baan ma jarteena tahay war ma jarteen ma ahani oo ani gabar Soomaaliyeed baan ahay marka waxaan leeyahay ninka kursigiisa loo daayo 4 sano idna hawiye kuma qabsan jirin idna baal kuma qabsan jirin marka halooga faa'iideyso waa ku maqlayaan Soomaali abaadka la daayo reer muqdisho baan leeyahay hawiye iyo waxa la sheegayna laga baro waa ku maqlayaan Soomaali haye halow qadka xiga baashu inay xaraabo yeelato u malaysaa doodu waa socotaa gabadhi Puntland baa soo laabatay halow codka kor u qaad halow qofka xiga halow وعليكم السلام ورحمة سلطانك أفريقيا مجاهدك داعتك روشاك الله محل عدو ليلة هنا عدو كاحجاب وبر رمضان عدو ليلة كاحجاب آمين كل يوم بالله نجح حجاب عدو هراء وقل لماذا كعمد بقو سلامية وعنين وضيه ليلة أحمد حسن قال الصهر لي سويدن بورلانجا أوكي أحمد حسن هرو الصعب هنا هذا يروق علي لك الله يا لو سودوين يا بلتان لو سودوين يا وحوري فندعين مع حرارة بس هو حرارة شيء وسك كتابة كنت وقت حال بوني ونري حرارة ما تشوف وحنو مالينا يا لما يقولون يقولون يا هيبة قويتين جيت بيدي يقولون يا هيبة قويتين فرق ما فوق طبعا لكن ما تسمعني من هؤلاء كونك عايش لخبيران وعايش لهوية وبوقتك قريب وها حق الله من هؤلاء وقد يقول وقد أنا بدا قاتل بها نر هذه ما هي من ضل يددوني من ما هي كان هو كبغاتكم وهدر الدوسالة شغال وطور سنة وانك يطعوتك وعلشري تندوي كافة التندو لسه يستاقي شري حمر العقدتك كان هاي العقدتك كسو حفظو أفر تندو كيري شري ويهو كان رئيس الوزراء شاكتني يا ما رئيس الوزراء فرماجة كان ليسا رئيس الوزراء كان يوتحو طور سنة غير لاوي غير لاوي هاي غير لاوي حوالي حلال بولي بحلال محل أفو عمل لير هذا طور طلية شحاراني وغير ما حلال بولي محل بسيط بحلال بشغف هاي وانا قالوا سريع بار وقنايو اصل iyo farcan waa qaan anigu wariga waan agtaagnay warigiis inuu xaaraan cuno ma xalaal ma ceelbo ka qato gudburo ka dhisto wariga wuxuu jiray marka masaakiinta qaxootiga rafaata wax lagu soo dhiibay wuxuu jiray waayahay maanta wax laga celaa oo sanadina waxa waaye dad iyo duuyo min reey maayo wax laga maayo wuxuu ka xishoonayo wuxuu ku mirgalay
واحترامي لو أركو أخواننا وحكريها هاي أمر التصورية درب الاستاجية طلع عاية وأنك أغلى عمان أنت وقف السياسة كرتي إنه يريد عيال عود الترديو يقول أمانة ضدك وعاية وياي حتى السياسي عاقل يعني كسياسي حتى حصل شيء ولا عاية شري ولا تعايلة شري ولا بلوري شري كارلوس بوكا ولا مقالة متعلنة وياي لكن كانوا سكران وتعبان وعندك هذا مسكعة وعندك هذا ونفكر إنه عيال كيرك ولين تردك يقول أمانة وحرق عاية وعاية ولا بقى السبعين وتذكر هلا ورينا وملا ورنا تذكر قريب نقوله وياي فرماشنا وحوي وحو أهان هذا العقل يسوي وعز وأنا ما خمس حرية ما قرر وحباك كثير والله إنه وأنا مسكعة وحقات تكان نكام وياي مركب سويدن جوتا بنابح ما كسو قيب جلسة والله إني وسويدن أشوفه وحوي بنابح برمي وانيا شيء لما تكون إيمانية إلى لحظة تكون بنابح أو سؤالية بنابح ما كسو قيب جلسة كسو وحلو بنابح أو سأستاهلين وحلو بنابح ما هي هذا بنابح وحلية وبنابح لو سو هرجة لو عمبارين أي سوريس لو جوبي وقاعدين كحلية بنابح ما هي وقاعدين كحلية كعنتها اللي قلنا وقراعنا لا هو أقرأ تأثيره لكن وحوي بنابح وحسنك سياسة عادل كوا مر وعقل ده ما له عقل ده سياسة وعكرتك بنابح السهل ما هي وحنا تبي سواء كرر السهل محله بنابح يا وبعندك بعقل بالقوة كوبين لمن dadka uu dilay in lagu maxkamadeeyo ka war sadar faa'iido loo yiraahdo loo hayr gareeyo u diyaar sugay dadka uu dilay waa lagu maxkamadeeyaa waxa kale oo lagu haystaa qala xumada ku sameeya boorta ku qoran boorta halkaan boortayda ku haya qala xumada boorta ayna qoran hayna waayahay waa maasantahay marka waxa weeye ninka boortiisa anagu waan hayno saana ugu haytay qabiilooyinka ugu haytay hadoo maanta leeyahay nin waxaan ahay muwaadin aan ahay wadani waan ahay waxaan nin buqaati aqal galba ma waxa ku muuqata inuu maskaxiisu dhameeyo aqligiisu aan ku filay marka banaabaxa tiri waxa istaayla ka waxa kale oo garaaco istaayla bas way waayahay waa maasantahay halo muqdisho هيا هروب الضوء عدك على الفروقات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ضوء هروب عدك على الفروقات. والله هي عشان محمد اللي مقرد. كسوع قف كذا والله مرة عدك عاربنا حي كسوع قال ضوء حي كسوع قال هذا أنا سأت هالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا ضد حي كسوق قال هيه شو قلت له ضد انا ضد وجود الدلع وحدي لا المظاهرات ولا سوق الدلع واي هاي الشعب كابينه وحل ذلك الصعب كان horta idiga dadka intuu kala dhaweeyay afaab dadka kala fogeeyay waati adiga oo ninkan magaciisa markuu tagay kismaayo markuu tagay oo shacabka muqdisho shabaqa ku xiray dadkiisa sidoo soo dhaweeyay akbar qabiilis akbar waay ku jira qadka waa lagu baahan yahay adigu hello والسلام يا دايرو وكا قاضي ضد هروقل يا دايرو بعد كده بيت اركاز بيت واي وقت هره واي في انا ما اعرف تلعب الدوري هذا لو فينا نلعب لكن ولا تلعب ما قرر هي ضد هروقل دايرو باوي انا waxaan qabaa kusoo dhawow reer buntland majarteenka waa loo baahaya kusoo dhawow hay welibana reer mudug ah oo nimankaas wada degsan baan ahay waaya iyo hortay hadda wixii waxaad ka dhigtay annagu tacsi uma meesha aad ku hadlaana halow ku soco waxyaalo badan baa ku taageeraya doodan saasan ku galaya ما يهدى عدك على المغلب ما يوحي وحاجة تصوريه متجرتين كانت كانت ماشى عدك هاري وهلو هلو هلو هيا هرو وصعب هلو السلام عليكم وعليكم السلام ضد وكنت هرو وصعب والله ضد وكنت واسع لي او ايش مقدسه جواب مش على سؤال الله المغرب واياي فرماجي اللي هو برنامج بحي الا محكمه يسوي ورك تعمل برجم يمال نيو على كعب رجل كده اسماء المواد على المغرب واياي دولة الآن دولة حماد عنتا واياي
marka ina adeero gacaliyo in dawladda Soomaaliya lagu baraanto oo mucaarad la sameeyo qabiil ay qurni baqti iyo maanta lagu dhuluureeyo dad qabiilaadka isku kiciyo ma fiicna dadka in la dilana ka war ma fiican tahay dadka guriyahooda lagu dilo lagu laayo iyo in wadooyinka laga xigto ma fiican taasuna ma fiicno laakiin dawladda way dadaashaa shacab Soomaaliyeed waxa laga rabaa in cadowga soo sheegaan cadow meel walba jiraan in soo sheegnaa u baahana adoo gurigaada joogta ka waran adoo gurigaada joogta dil oo argixisay waayo madax lagu soo hogaamiyay ka war maya raasa ma hadlay dhegeyso guriga jooga nin wiilkaan dhalay hadii aan sabab yahay sheegay maya haddaad ahayn ba ka war nin siyaasi fiiri xamala joogta guriga Cabdiraxmaan Ashkur maxaa lagu weeraray argixisay ma wahay maxaa loo leeyay maya dadka dawladda hadda dawladda leeyahay ma arkin waxa dadka leenahay waa ka soco hello ها dood hore ka gal barnaamijku waa socdaa lagu dhageysanaya hore u gal qofkii soo wac waxaan leeyahay hore u gal dadkii soo wacayo salaan oo baahna dooda socod dooda gala waa si wanaagsan hadaba waxaan ka soo hadlayaa Hargeysa waa yahay daahiro aad baan ku salaamay marka koowaad salaamullah barnaamijkaaga horta aad baan ugu bagi waa yahay waxaan ka hadlayaa caawa ninka farmaajo waayahay ninka farmaajo ninka Hargeysa maxaa ku dhacay waa go'ay hello 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 yeah hello hore u gal hore u gal dooda walaal dooda wax naga soo gaarsiido dood fiican ulamaana socon hadda qadta soo galnay dooda waxa la socoto hore u gal hadii kale waxa gudbayaa waxaan si fiican ulama socon baa ku yiri bal wax iga soo farmaajo safar ku imaanaya burjumka dadkuna banaanbax bay u diyaar garoobayaan qaarna loo ray qabsadeen in dacwiyadad uu ka dilay sida u aragtaa adigu otoranu si fiican baa u arkaa in lagu soo banaanbaxay wixii qaldan waa la saxayaa ma fahant waayahay wixii saxanna de waa saxan yihiin waayo waa maasan tahay ma intaas macnaha uga baxnaa caloolayow hello 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 ha hay dooda hore u gardaa la socod dooba ku jira ka gudub hello hello عليكم السلام ورحمة هالو هالو وعليكم السلام ضد أسعط هروقل codkaagaan si fiican u maqlay in yar iigu jir codkaagaan maqlay in yar iigu jir hadda soco ku soco halo hadda ku maqlaa ku soco هالو هالو السلام عليكم وعليكم السلام يورا نويس هيا دودا ku dooda waxa ka soo qaybgasho doodde ka soo salaantu waa mar kale waniyo wardaar على sooniyo dooda waa ku socdaa brotherkayga shalay ninkii waxaad ahayd farmaajo saxaabtumay maanta maxaa kale inaad ka baxdo farmaajo shalay u saxaabtumay wuxuu ahaa nin saaxiil oo beenloob oo ahaa waana gartay waana ka soo laabtay qofkii ugu horeeyay ka soo laabtay aan ku faraxsanahay dooda mawduuca ka bixin mawduuca ku soco eega dhageyso ninkii halo halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة دايرة ممغتا ها ومحمد أكثر من مرة بعد مقدوش كان قال الله مدرس هذا محمد كم حوي وصل لابناي محمد الله هذا والله هذا هلو أدبن قوسة لم يطير عليش سلام الله ضد هروقل نواني كي هاد تكون هاللي هرقيش اللي هاي نيكي هرقيش وهاقا وحوما هي هذا 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 هذا
hadlayaa farmaajo iyo arrinkiisa waayahay hadda ummadda soomaaliyeed horta soomaalinimada cid ka guuraysa oo ka tegaysaa ma jirto waayahay isaan ku dheh waayahay farmaajo waxaan uga soo horjeedaa hadda hadduu muwaadin soomaaliyeed yahay waxa uu wax ka qaban lahaa markii somaliland iyo puntland ay isku dilayeen waxaan macnaa lahayn ummadda islaamka dhiigooda ku qubanayay bilaashka kamau hadlin waayahay markuu dagaalku dhacaye la isdilaye gardarrada iyo dhibaatadu ay ku socotay ummadda reer waqooyiga kamau hadlin waxaana isagiina ka dambeeyo raalli ka yahay way muuqataa waayahay marka su-aashaada ah ma la soo dhaweynayaa in la soo dhawaayo iska daaya in la soo celiyo oo yacni la caydhiyabaa waajibkiisu yahay maaha waayo madaxweyne soomaaliyeed ninkani maaha waayahay waana nin ay tahay in la iska qabto oo ummadda masiibo ku ah oo ay tahay in maxay tooley yacni qaandara lagu qabto waayahay adiga waxaan kugula talinaya horta dee qabyaaladu horta wax maaha faa'iido leh qabyaaladii waxaa la qari qaar may doonaysaa qaran ma dhistan moogta waayahay marka adigana waxaan kugula talinayaa yacni dadka soomaaliyeed ee noqon dad qabyaaladii wax ay kala kaxaysee aad maslaxadda ummadda ka shaqaysaan waayahay aadna waan kuu salaamaya barnaamijkaagana waan mahadinaya laakiin barnaamijkaaga salaamullah halow qofka xiga halow 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 qofka xiga halow 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 السلام عليكم وعليكم السلام على سواك سلامي سلام قبيت إن هذا هركم شيء عنتهاي وفي على ضد ضد هروقل وجب ضد وي anagoo aad u badan oo dhowr iyo 20 waan ka soo qayb galaynaa waana ogolnahay waan rabnaa inaan ku banaan baxno maana gacanta ula tagno waliba ma garatay waayahay waxaan ka jeclaan lahaa laakiin sinaad jaarisir siiso aan ninkii haday kula hadlay aan laba eray iraado haye ku soco ninka kula macnaa daarood noo buubuuninayay niyo haddii hawiye iyo daarood loo kala baxayo ama ay taas faa'iido ay leedahay wuxuu markaati ka og yahay awoowayaashiisii adeerayaashiis in si saxa inta loo kala sabtay banaankaas la wada istaago waxna tiri waayo inay ay dhadhaab iyo kenya ay qaxooti ku noqdeen ma garatay waayahay xaniya shalay aysan lahaynna maanta ma yeelanayaan marka halka maalin oo ay gacanta wax ku qabtaan inay macnaha balaayi iyo cuqdadii ay soo bunbuuniyaan haddana aysan dadka iska dhicinin niyo horta wax doqonnimo weeye ma garatay maalin walbana facebookyada balaayi ka bunbuuniyaan waxaan u sheegayaa dadka hawiyaha waxa waaye dad xalaariya ka xishoonaya waxyaabaha dadka daaroodka ay ku dhaqmaan waayahay waxaan anaga ka xishoonaynaa inaan banaanka qabyaalada la soo istaagno niraano reer hebel saas weeye reer hebel saas weeye ma garatay maalin dhaweed burcaawi nin oo waraysi siinayo wuxuu ku yidhi hawiye xamar waxay ku yihiin marti waayahay marti ku ahay maxaa adeerada iyo awooyaasha kenya qaxooti ugu noqdeen ii sheeg waayahay war waxaan qashin waaye runta in loo sheego maahanay daayro wallahi inaanan macnaha xishoodeesa waxba ku lahayn iska dhicin bay wax ku leeyihiin inaan toos wada noolaano aan wax qaybsanno haddaysan ogoleen waa inaan iska dhiciyaa dadkan farmaajone meesha goobta hadda uu imaanaya waan ugu imaanaynaa intaan hadda jarmalka aan ku joogna xataa dad reer waqooyi la socdo wallahi waan dhagaxyeenaynaa maana gacantaan ula tegaynaa hooyadiina waa la wasaan eegay ugu dhala ma fahantay waayahay dhalinyaro kalo halkaas ka sii wad waxa waaye barnaamijyadan aadaan la socdaa hadal qof iska yiraahdo ama booto iyo annagu waa ka ballaarannahay dad waxtar lahoo dee waxaan nahay maalinta laisu soo istaago ee ayaguba ay garanayaan ayaalkan beenta loo sheegay oo shalay dhashay waxaan u sheegayaa in laydinku hurdisiin jiray aydiid baa soo socda iyo hawiyaa soo socdo waa laydinku hurdisiin jiray marka maanta inaad iska qalqaylisaan ay been waalidkiin idiin soo sheegeen oo laandheeraatiin idiin yiraahdaan
وبين لانجابيا والله تين وانا اللي ذنك هذا جاي وحاك أذنك أتقول بيسان أنا وان كحشوننا نقرقة وحسكد عيو أو احترك له ما قيليو بيلانا كما بوتيو دتك لما حكتو دتك لما حايو لكن سوحوس ميها maalintii hada tahay oo raganimo iyo xaniyo fuul la isku yimaado buu xaniyiisa dul fuulaa dadka iska dhiciyaa annagu dad noocaasaan nahay waxyaabaha Facebook ee la fadhiyaan waan ka xishoonaynaa naga xishoodaan hadday dagaal doonayaanne ayagii mas-uuliyiintooda hayso soo raacaane gaara u istaagayee buugga xunoo yar oo farmaajo beerta golu bubuuniyo meesha lagu soo koray yeesan annaga waxba noo samaynin hadda qof nabad iyo nolol ii keen car farmaajo iyo qayre maanta waxaasay sameeyeen ha yiraahdaan haye qadka ku jir qofkaan kuu soo gelinaya qad ku jir hallo عليكم السلام ورحمة. سلام الله ضد ظهر أوقل. ضد ظهر أدم وحد ثم فرماتها شنو تكتش أنا يوم لو بنا بحيا. ها. صوت هنا هذا ما يعني ما قبل لو بنا بحو فرماتها. وقت لا تقيسنا رغمار. وايا. وايا قلب نجح يدي وسؤال شان كويدي قلب نجح يتوب يودي بي قلب نجح هو حد بين من مرض ولا ربع فرماجة وكفشية لكن مدحوينها الدلك يا مدحوينها الدلك ما هديتون إلا وسير لا مايا وايا يا دور عليك إن إلا يا حتى ما يسافر ما جوي رهالك ميه هنيك مواد ويا هلي سومالي ويا هلي سواليو ما يسهل كاسو مسوا قبيلة باش قبيلة أبكرنا سؤال بدو حمد صدق ما داهر ودا عدى له قبيلة بماي لكن كنت أروح أنا وركينا يدقوا قبيلات كلها ما يسافر فرماتشوك مسجي سقوا يتطرق قبيلة وايا دتك برير الأولى من مكور هيسا إيش أدوات كسر شو هذا قدر يا هو أنا وركين براي نستفيد دونس هاي كحتى وايا هاي براي مستر لا دون مايو habar gidir ma taqaan hada xasato Maryaxaan ayagoo laga qaxiyay dhulka Soomaali laga saaray ayada ku soo celiso Kismaayo keenta ayagoo xiri ilmahooda ku wata madaxa ku watee laakiin waxaan ku weydiinayaa bariir xasuuq ka dhacay mala socotaa tuulada macalinka mala socotaa jilib nimankii abgaa lagu dhamay mala socotaa guriga Cabdiraxmaan Abshukuur in gabar uur leh iyo shasar gaalmeedkood ilaa hadda aan lahayn mala socotaa mise waxa lama socod والله وحياة بدر السوشيال ميديا وقصة غروان أركي لكن دبعتنا الصومالية وإسرائيل وحياة بدر وكذا عن ذلك لكن دبعتنا فرماتشو ما هو بيصير خصوص وعدكم بينهم وأنا مثلا فرماتشو ينين هم بلا من مسكين من صومالي بس كورة أنت بدر وضن قوة إسرائيل دبعتنا ودون يعني يكون في الشريعة من ضربت من ضرب شدام الصومالي لما هدا دوني سان هدا دوني أو فرماتشو كبير أهم وحنا أنا ونين ما تشاركنا مثلا وايا markaad in ma jeerteena ahayna anugu maxaabaran anugu wasiirka aan ku leeyahay dawladda waa buu kayga hore kana waa la celiyay shaqadiisii waa laga celishay maban وايا dhaqaalaha dawladda soo galay inta ugu badan Muqdisho lagu bixiyaa وايا wan baysteen dawladda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa nooga waxtar baday وايا waxaan u aragnaa anagu farmaajo qodobka kaliya oo maanta lagu ernooriyay anagu dad noogu daran yahay waxbana nama taro وايا hadana inaad ku haysataan magaca daarood oo ninkaas waa doonaysan meesha inaad tigiridataan ayaa ku jeeda وايا المجرتيني مغل بوساسو وان Soomaaliyeed dekada boosasa ku taalo dekad Soomaaliyeed weey cashuur maxad dawladda dhexe ka siisan lacag laga helo waxa ku sheegay Puntland waxa ku nool 4 million people waa su'aashi iga jawaab bas su'aashi iga jawaab bas dawladda federaalku mushaarka shaqaalaha ma siiso amnigeeda ma sugto caafimaad waxba kama siiso iskuuladeeda wax kama bixiso intaaba dekada boosaasood baa lagu biiraa وايا عبد الوليقاس مدحوينيه المجرتيني مدحوينيه عبد الوليقاس وحو يري بلدان ما أها مقدشو مقصرة ما أها بلدان مقدشو بلدان مقصرة ما أها مقصرة صوماليا ما هو marka ma xaq baa u leedahay adigoo majeerteen inta timaado xamarnaas ka dhuuqdo wasiirkaaga dhuuqo oo xildhibaankaaga dhuuqo oo haddana aad farmaajo ku taageerta cadowga
oo ilaahay kuma samadiide dekada lacag laga cuno tan xamar kaliya la cuno oon kismaayo laga soo qaadin oon berbere laga qaadin why you not go to berbera iyo isaaq why you not go to majeerteeniya iyo mataqaanaa way aadi weysay ay dowladdu aadi la'dahay maxay kismaayadan dhow ay u tigi la'dahay soo dadka laga aadayaa qabiilkan maaha hawiye meesha dega daahiro waa kaga jawaabaya dhigaha ii fursaay anigana jaaniskayga waayahay waxaad had iyo jeer ku doodaan in dekada muqdisho la cuno dekada muqdisho tii xasan sheekh maxamuud turkida ka kireeyay maaha miya war waxaan ku wiri dekada war waxaan ku wiri muqdisho turki lagama kireyn miya oo lacagteeda war waxaan ku wiri su'aasheeda meel kale la aadin dhegayso baarlamaanka Soomaaliya halo dhegayso baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri dhegayso baarlamaanka Soomaaliya wuxuu yiri DB Wall waa ka irna dalka wali waxay ka shaqeynaysaa dekadii Boosaaso dekadii Berbero dekadii Kismaayo waxa weeye lacagta xildhibaanadu ay cunaan iyo wasiirada iyo shaqaalaha dawladda iyo farmaajo waa canshuurta shacabka muqdisho laga qaado maxaa canshuurta laga qaado shacabka Puntland iyo shacabka Jubbaland iyo shacabka Somaliland maxay dawladda dhexe u cunu laada daahir calaasoo baarlamaanka Soomaaliya Norway waa mushaarka iyo beesha caalamka ciidamada Soomaaliya Mareykanka lacagta siiya dekada muqdisho waxa laga kireystay Turkiga lacagteeda khasnad bay ku dhacdaa 20% ka soo harana xaafadaha muqdisho loo qaybtaa shilin cidi kama qaadato shilin ka qaadataa ma jirto anigu waxaan tagay wadanka waana ka warhayaa siyaasadana waa u daloolaa waxaana waa propaganda media waxba kama jiraan muqdisho anaga waxba nagama soo galaan waxa weeye canshuurta laga qaado muqdisho boqolkiiba 15 ayaa maamul gobolka la siiyaa 3 bilood 42 milyan iyo bar in la qaado duqa magaalada sheegay baarlamaanka in laga siiyo anaga ka oga banka dhaxo ka qaataa iyo wasiirada ciidanka Puntland mushaarkoodana dawladda dhexa bixisa oo laga qaadaa laakiin waxa weeye hadalkiina wuxuu u muuqdaa marka la qiimeeyo wixii soo jirjira taariikhda lahaa ee ah kaygana ana iska leh kaagana ana kula leh marka way fiicanta hadii caawa la helo سؤال نيكا هوريه ان ويديه وايهاي maya ha ku dambeynina waa xore inuu hadlo qofka ku dambe lagu dambe maya waa xore su'aal baan ku weydiinaya walaalow markuu nin daarooda ama ra'iisul wasaare noqdo ama madaxweyne noqdo muxuu rabash u sameeyaa oo dagaal iyo colaad iyo kursi ku dhig u sameeyaa markaan ka soo bilowno maxamed siyaad barakuula san dalka haystay cabdirashiid cali sharmaarko u dishin hawiyo ninka xiriirley oo saaxiib leh ama gabar ka qaba ilaahay kuma samadiiday cabdullaahi soo markuu yimid waxa ogeeyay Ethiopian caasimada keenay oo fila Soomaaliya keenay farmaajo maanta maxay markay kuraasta kuwa hawiyaha qabtaan ay dadku u dil la yihiin idinku markaa qabtaad ku dilaysiin musubaas u sameynaysiin qabyaalad u soo laba ka calaynaysa maxay ka sababtay fahamsiin daahir calaasoo waan kaaga jawaabaya adigu sidaa ugu aragtaa baan arkaa dowlad ka horreysay siyaad barre ma jirto annagoo mucaarad ku ahayn dalka Soomaaliya inta maanta ka dhisan dekedaha ka dhisan aeroborayaasha ka dhisan hay'adaha ka dhisan giddi isagaa dhisay Cabdullaahi Yuusuf ninkii la oran jiray adiga ayaa dowladda qori kala hor yimi cabdiqaasim oona adeerkaaga aduu kaa shaqayn waayo dowladdana xoog ayay u fulinaysay nimanka Cabdullaahi Yuusuf madirayna waxay ahayd niman adiga ilma adeertaay oo qabriyaha oo hubaysan waxa ku jiray Muuse Suudi waxa ku jiray Beelaad waxa ku jiray dhammaantood waad garanaysaa niman waxay ahayd xaafadaha muqdisho Cabdullaahi Yuusuf dowladda Soomaaliya waa ninkii cagaha u dhigay intii laga xoreynayna adiga aad dowladda macaankeedina adiga ayaa ku raaxaystay maanta ay gacanta kugu jirtaa waayahay waa ku shacabka adiga shacabka ku dhageysanaya adiga ku xusunaya ergigii ugu horeeyay qaramada midoobay taga wuxuu ahaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ka keenay oo ma soo saxiixay xornimada Soomaaliya tahay dal madax banaan oo jamhuuriyadda ra'iisul wasaare ugu horeeyay ee Soomaaliya uu yeeshay wuxuu ahaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud nin hawiyaha habar gidir oo sacdo reer macaala madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya sida dimuqraadiga loo soo doortay shacabka u codeeyeen oo ay shacabka qof iyo cod u codeeyeen sida dimuqraadiga loo doorto wuxuu ahaa aadan Cabdullaahi Cismaan nin hawiyaha u deejina oo mudulooda labaduba si xor ah u baneeyeen kursiga cabdirashiid la doortay oo isaga si xor loo soo doortay dawladda reedka ahayd majarteen ayaa ku dilay laas caana isagoo jooga qodbaynay waxayna u dileen ninka hawiyo xor leeyahay waayahay maxamed siyaad bara dalka afgambiyay general Deel iyo general Caynaashe korneel Deel oo majarteen ahaa Caynaasho isaaq ahaa iyo saad gabayro ninka u qabta ahaa afgambigu u sameeyay intaba waa u dilay 12 sano siyaad bare dalka
anu arrimaha kala gudba laakiin siyaad bar koob iyo labaatan sano waxaa leedahay dalka Soomaaliya doorasho kama qaban karin miyaa leedahay ninka la yiraahdo dictatorada adduunku wax ka jira wadamada Afrika oo waa wax ka dhaca waayahay ninka daaroodka kaliya muxuu dictator u noqdaa laakiin adigu dawladdu waa burbursan hada tibiraha tahay oo saxaba ama ka cayduud baa hadalka ka qaado dhageyso waxaan ku weydiinayaa fiiri qof maya wax su'aasha adag kugu socota waxaan ku weydiinayaa qof la soo doortay oo madaxweyne loo soo doortay aan ka hadlayaa maxay ku dhacday in mataqaanaa Maxamed Siyaad Barre 20 sano uu dalkan doorasho ka qaban waayo soo ciidanka ugu xoog badnaa Afrika haysta maxayse ku dhacdaa in ninka daaroodka kaliya uu kursiga ku dhigo oo uu xalbido inuu qofka dadaalkiisa dilo Soomaaliga uu qabyaalad dib u abuuro uu eexi musuqmaasuq iyo qabyaalad sameeyo qofka daaroodka kaliya maxaa ku reebay waay oo Cabdiqaasim ka sheegaysid nin hawiyaha la fuyn u ahay oo si nabada ugu wareejiyay Cabdullaahi Yuusuf waliba oo shirki asoo xilka u dhamaan waqti u dhamaan oo Nairobi u tagay waxaan u arkaa inuu dalka wuxuu ku aamino uu waayay oo dadka uu maanta inagu aynu aragno oo arkayay inay dalkan mas'uul ahay sidee dad mas'uul joogaan dadku 30 sano ma burbursanaadeen macnaha waxaad u aragtaaba macnaha Siyaad Barre qof dalka lagu aamino inuu mataqaana alla qabyaalada kullah waayahay anagu fasaxay waxaan kugu xasuusinayaa dalka Siyaad Barre dhaqaalihi ka soo baxa meel uu masii inna ma taqaano jidka wadooyinka aad arkaysid waxaan u dhisay Jayneys xarumaha arkaysid waxaan u dhisay Jayna hubka arkaysid waxa keen Russia wadooyinka badankood waxa dhisay Russia tiyaatarada waxa dhisay Russia waxa caalamka dawladda ka socda ayaa sameeyay dariiq kasta dhismo kasto arkaysid dekedaha arkaysid ayaga sameeyay dekada Berbera ayaga sameeyay Muqdisho dhaqaalihi dalkan uu lahaa caaway ee Siyaad Barre 20 sano oo aruna xagee martay dhaqaalihi Soomaaliya Siyaad Barre wadan waa inta aad sheegay sabab ma ahan Jayneys dhaqaalihi dalka cashuurta wadanku hooyo Siyaad Barre ku dhisay hadduu waxaystana awlaadiisa isaga laga arkaa wali ma arko qof reer Siyaad Barre waayahay waxaad tirnima jarteena hataa laakiin anigu waxaan aaminsanahay nin reer dallo reer alla magana inaad tahay markaan psychology-ga cabiro waxaan ku dhageyso waxaan ku weydiinayaa okay waxaan ku weydiinayaa Siyaad Barre ma aaminsan tahay inuu majarteen laayay oo baraagahooda waxeeyay oo haldoorkooda dilay ma aaminsan tahay Siyaad Barre waxana waa dilay waxana waa hagaajiyay laakiin intuu hagaajiyay baa batay su'aasha waa kugu celinayaa Siyaad Barre sidoo isaaq u dhameeyay majarteen sidoo isaaq iyo hawi u dhameeyay majarteen inuu u dhameeyay ma aaminsan tahay mise ma aaminsanid oo xoogaalkaas ma tahay Siyaad Barre dadka ma lay jirin dad badan oo siyaasaddiisa ka faa'iideysan jiray marka majarteen waxa laayay nimanka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya oo dawladda siyaasadeeda ka faa'iideysanay dagaweynaha ku jiray xasan Yuunus banaa ku jiray kadibna way goosteen wadada doonaya dadka inay kiciyaan ayaa dadka leeyahay madan Siyaad Barre madaxweyne waa laakiin hoos ayaa wadanka laga xaribay inta ugu badan saasaan taariikhda ku haynaa waayahay hadda bisleeda farmaajo xilka uu ka dagi dooyaa si nabada waayahay maalinta la gaaro waayahay maalinta la gaaro ayaana ku weyn hadhuumanin waayahay kaasina wuxuu ahaa nin reer dallo reer alla magan oo isqarinayo isku qariyay inuu majarteen waa maasan tahay halow qadka xiga halow lahjadooda la yaqaan dadka isku qariyaan halow ha عليكم السلام ضد هروق قال وجبجبين يا ضد هروق قال وقد قال يا والسعودية قوم أن اللي يراهدوا خصوصا الله ذلك بلجيم كليمبروك مقرة نعاني حصل واي هاي كسر هذه هذا برنامج وجبجايا لكن وحنا هنقول قلنا كاسو الجد أو دارات كأو معارض كأو مقرة واي هاي واللبة هي waxaan yara bayaanaya oo dadkan u bayaanaya oo aan oranaya dadka yaan been loo sheegna ma lagu halaagna ma loo macaanin horta daarad daahir cali soo hadalkaaga in badan baa ka dhageysto waxa tiri daarad muxuu yahay oo waxaad noo amaantay madaxdii ka horeysay cod iyo lagu soo doortay dimuqraadiyadda
أنا دارود حما جيسنا وحن يحسوني سويال كما دام أجيل عسبتهين يا الصومالي أو واحد سيد محمد عبد الله حسن باكر شو هل يجي صوماليات أو حرية ما أنت أتكفر أو ما أنت حمر أدمار تبع بعد جيس أو تاريخي 91 كي دجالة وكذا عين ترنيجو وشيء كان يسوق هذا محمد عبد الله حسن باكر كهنا ما قرأت الصومالية سيد محمد عبد الله حسن كان الشيء حسب بصناع لي كانوا طريقة دجالة يعني طريقة الجميسناي سيدكم dadku ingiriiska gumaysanaya ayaa weydiinaysaa anigu shay xasab baasana iyo halgamay farmaajahana hadda sheegaysana wuxuu ku yimid dimuqraadiyadii oo dad bambu ku yimid oo wuxuu ku yimid xildhibaano la soo doortay oo dadku shacabka iska soo saareen oo reer walba qabiilkoodu uu xildhibaan keenay halka ku yimid roob iyo faataxa kuma imaaniyo sodonka jis waayahay jaala daarad waa maasan tahay nabadda Soomaaliyana daarood halo ها هروق الضدة ها أنا السؤال اللي مو يديني برنامج للصعود هلو هروق هلو ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة والله المغني هلو دايرو مكبح برنامجكي وكجرا هروق إلى بش عافمان هو قرسي برواقه ومد الصومالي جورهان يقارعان بوسلام يا سلامكم ملك سيجوجا وايا غيب بش أنت لما الله ونحرسته حالكم دق برنامجك ودنا وحوي وحد تجيك سماد مالي هذا محنا ودنا وكردالسنا هاي ولا ضيعسن هاي ربي جاي توصل لنا توصية قبيلنا إلى حين قدم ميو آمين يا ربي هلو قد حاجة هلو كسوع برنامج كسوع أيها بيبر واكو حلنتا برنامج الله يفاتا كسوع هلو قد حاجة قفك أدو صوت ده وكيد بيه هلو عليكم السلام برنامج كروجل برنامج وانكو جراني وبيجي أن كذا بين الصومالي هلو قد حاجة هلو عليكم السلام برنامج كروجل لا برنامج كروجل أنا وحدي لا نكتب ما جل يرابو رنتي دلك مركو قبنا يي sidoo hadda yaa muusan ahayn ma garat waayahay dad badanna waa lagu xasuuqay wax badanna waa la baabiyey jeedka magaalada muqdisho xoolo loo gala ma garat waayahay magaalada muqdisho aan joogna xaaladda waa la socdaa mar walba yani dad badan in la xasuuqo waa la socdaa ma garat waayahay marka waxaan oran lahaa banaanbaxaas ka dhacaya biljinka yaa loo kala harin dadka ma taqaana yurub ku nool dhammaantood oo isku soo wada baxaan ma fahanti waayahay qadkii ugu jiro qofaan soo gelinayaa هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة واكو حل انت برنامج كروجل أي أرض أنا موافقة وإن مدحوينها وقدام وهو دار هذا ما فهمت واياهي وحويا مركا أنا موافقة ninkaas waa nin muwaadina waa nin maaragtay dalka wax u qaban kara waaya shaqaana in laga dilo maskaxda iyo dalkiga ma fiicna ma garan xagaad ka soo hadlaysaa joogta adigu waxaan ka soo hadlayaa muqdishoan ka soo hadlayaa habar caynayaa ka tahay ii sheeg ya habar caynayaad ka tahay ma urgaalaad tahay habar caynaya nin habar gidirana oo cayra هلو قد حاجة هلو السلام عليكم داهر على سومية والداهر على سو ضد هروقل تذكر حق سو حق سو هروقل ضد على سوته هلو هلو وايو اسكو سو غبغينيا قفكا سو هلو قفكا ugu dambeeya ta nasiibkaaga kaasho ha
إيكا عدك هلا مغلى هلا ومحاتري dadkaanu dadka ma xumaadaan hadalladaada waan maqlaayay ninka ugu dambeeyaad wada hadlayseen waxyaabo bayaan cad baad hor dhigtay ma garatay waayahay ninka ragga waxaa lagu yaqaanaa marka gar u qabato gartiisa qaato ma garatay waayahay laakiinse hadday gar qabato meelo kale ay ku galgalanayaan dadkaanu dadka ma xumaadaan waxba iskama bedelaan halka maalinoo mas-uuliyadeer ay helaan futaday kala qaadayaan dadka siday wax guri jireen iyo sida dadka loo gumaysto iyo sida corruption looga shaqeeyo waxaanayaan ma garanayaan ma garatay waayahay dee waxaasna wax laga soo gudbay waaye dadku markay ay dadka iska kaa dhiciyaan waxaa loo baahan yahay dee si sax inaad kula socoto ma ahan inaad macnaha ka daba wareegaysato balaayo la eraayso dadkana aad iska dhici karin waa dhibaato ma garatay waayahay annaga xurriyadda soomaaliya dadka noo keenay xasan barsare ibraahim cali shido hadda mar dhow noolaa asoo noolaa ugu war dambeysay rag badan oo taariikhi oo hawiyaha ka dhashay ma garatay waayahay marka waxaasoo dhan uma jeedaan waxay u jeedaan oo keliya halkooda qof hadduu xumaado ama qalad uu sameeyana waa warkiisu waa xadiis ma garatay waayahay annaguna keena xun fartaan ku taagtaagnaa taas waxay ku caddaynaysaa dad wadaniya inaan nahay oo nabad aan doonayno aan balaayo rabin oo dad dowlad doonaya aan nahay laakiinse ayagu aysan ahayn dad dowlad rabo haddii aysan ayaga wax gumaysanaynin ma garatay waayahay dee dadkuna inay gumaystaan cidu ka yeeli mayso ninkaa xaniyo badan inaad gumaysato cidu kaa yeeli mayso ma garatay waa mahadsan tahay halow muqdisho halow عليكم السلام ضد هروقل dadkii caaw cid ka bateen daan cusub salaama marka hore waayahay horoqol dooda farmaajo maxaa la dhahay uu sheegay dadkii uu siray marka uu wareegay wuxuu dhahay qarax 100,000 afriinana ay soo sheegto waayahay qaraxii uu dhimay 100,000 saacad waa dhifeena waxyaabo beena beenlow waa qarax dhowr qarax dhacday wax uu sameeyay ma jiraan ma garan waa beenlow beenlow madaxweyne waxa waaye in la dumiyo oo maxaa la dhahay in uu mudaharaado mudan sida farmasiida loo bixiyay adeerkiisa oo kala loo bixinaa ma gartay waayahay waa maasan tahay halow qofka ugu dambeeya waqti waa ga dhacay الله فناك وين كل روق هسي وقدم السبع كله فلنا عيد ظاهره هيا عيد ku dhifo لما انت عيانت iyo عيد وانا احسن الهي نسي asaga kuwa wale way ahaatay maanta si wanaagsan ciida halow maqal waa buuxa waxaan la hadlayaa waxaan ka digayaa yeyd iyo burwaaga meel haye soco waa isku mid oo silent killer ah oo soo raaca inta hawiyada si fiican codkaaga loo maqli maayo si degan u hadal codkaaga si fiican u maqli maayo waxaan ka digayaa faqasta meesha qabsataa ka digayaa ma fahamti waayahay waayay iyo baan iskugu imaatay durwaa waayahay waa mahadsan tahay halow maantooda qof baa gudaha laga soo ها السلام عليكم وعليكم السلام ضد هروقل ضد هروقل قالوا أنا مدحوينها إنه مظاهرات ما قالوا هرا عيشك تصرا عيشك تنيو هلو حاجة عراق سلام وكان قاضي ضد ومغلويا قلت لنا أنا صومالي تبغى تسوي داشي كده ما قرأت وما صدتها هلو قف حاجة هلو هيا ضد هروقل أنا تاجر فرماج أنا أقولي بنودي الله هلو هل صدر يا حفيزك غير لا صدر كعو هلو ها هلو
هلو قف ugu dambeeya ka qabanaya Sweden qofka Sweden soo hadlaya nasiibkiisa halo 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 waayay doodii intaa kusoo gabagabaynaya caawa intaa hayna kala gaarto habeen dambana doodda way socon doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo haddii ciid la gaaray haddii laga baxay intaba sida u bilaawnoyay doodaha shacabka waxaad arkayseen jaal hawiyaal doodda caawo nin uu soo qaatay maxamed cabdullahi xasan laakiin nasiib darro hawiyaha oo hurdo hawiyahoon aqoonin sidadkooda waxgalka ay shacabka loo baro ayaa waxaa dhacdaa in dadku ay isweydiiyaan sida cabdullahi xasan nin halgamaayo ahaa oo taariikh weyn soomaaliya ku leh oo ingiriiska la dagaalay laakiin yay ahaayeen leegadii leesma weydiin yuu ahaa ninkii talyaaniga ka saaray koonfurta soomaaliya sheekh xasan barsane taariikhdiisa maxaad ka taqaana ayaa kaloo halgamayaalayo hawiyuhu lahaayeen waxaasoo dhan lagama sheegin laakiin taalada sheekh xasan barsane waxay hadda ku taagan aargadooda waxaa lagu sameeyey mataqaanaa yay tahayd xaawataa kaloo isma weydiin sheekh xasan barsane yuu yahay qofna isma weydiin waxaa arkaysaa qofku si kastoo farmaajo necab yahay inuu qabiilku difaaciyo si kastoo farmaajo necab yahay inuu qabiilku difaaciyo marka doodda intaas caawo ha inoo joogto mataqaanaa kulan dambe xiisala ayaan is arki doonaa farmaajo safarkiisa in wax walba ka muuqan doonaan sidii looga soo dhaweeyo inkastoo qof meeshaan caawa waxba u soo celiyay halow ها هروق الضوضة ضوضة وسوحر لكن هروق هذا كيف يسنيس هلو ها ها هاي بالإير هروق الواحد برنامج لكن هذا كسر كوبيس هروق واي هاي جرمال كان جوجتا جرمال كان جوجا ها واني مانا يا بيلشم كوا لما طلابو واي هاي ما قراتي هاي سيدو أركتا جودها فرماجة لكن سيدو أركتا يا فرماجة مو فشلمي واي هاي قرحي صوبني ساكت بي واي هاي مركا فرماجة وا داون واي هاي مو فشلمي واي هاي مركا waxaa ku iska tagaya sida ugu dhaqsaha badan leh واي هو ما سنتك هلو برنامج واحد رالي هانيسين هلو واي انت هاي نو جوجتا عاو شعبka dareenkooda waad arkeen majority-ga sida loogu soo horjeedo habeen dambe ayaa waxaan idin soo gudbi doonaa gudoomiyaha jaariyadda dalka Belgiumka jaariyadda Soomaalida weeye iyo qaabka qaabada u socoto waxaan isku dayay waliba inaan u tago oo baxo haday ciid noqoto oo aan si live u soo wareesto banaanbaxaysa loo qabanqaabinayo sidoo kale waxaan idin soo gudbinayaa oo tagayaa looyarada hayar garanaya looyarada diyaarinaya kiiska mataqaanaa lagu maxkamadaynayo dacwadda lagu ogaayo maxamed cabdullahi farmaajo ma ogi sharciyan waxa ay mataqaanaa ay dhihi doonaan laakiin waa idin soo gudbinayaa waxaan leeyahay dahal cali soo leeyahay dabaysha geedaha ma ruxdo inay ciyaarsiiso ha biqlayso